mareenka hor imaatin anaa idin wasma nabigiina anaa wasata nabigaaga iyo kitaabkaaga iyo diintaada ilaahaaga wax dhanamaadin igu qaado waxaa ku dhacday musiibo iyo wax uusan filayn bilo ka hor ayuu hooyadii si layf ah u bahdilay ceebeeyey sidoo kalena caayay uu aflagaadeeyey haddana waxa uu si toosa uga gafay suubanaha calayhi salaatu wasalaam eebbihii abuuray iyo dhammaan dadka muslimiinta ah waxa uu sheegay inuu gaal yahay uusan haysan diinta islaamka sidoo kalena uu caabudo shayddaanka shakhsigan aan kuu sheegayo waa shakhsigan isticmaala baraha bulshada gaar ahaan tigtogga iyo youtube-ka dhaqanxumadana ku baahiya wiil dhallinyaro ah oo sidoo kale ku soo bandhiga barta tigtogga muuqaalo dhaqanxumo ah ayay ku habsatay musiibo aad u xoog badan kadib markii uu u gafay suubanaha iyo sidoo kale diinta islaamka guud ahaan isagoona wax walba oo markaasi diinta xiriir la leh aflagaado u geystay haddaba daawade maxay tahay waxa aadka u foosha xun ee shakhsigan ku dhacay xaalad caynkee ah ayuu ku jiraa maxaase sababay inuu u gafo suubanaha calayhi salaatu wasalaam eebbaweyne iyo guud ahaan dalka muslimiinta ah iyo xitaa hooyadii isaga dhashay ee 9 bilood iyo sugood caloosha ku sii waday inta aanan bilaabin muuqaalka xogtan oo kula wadaagin daawade muuqaalo argagax badanna ku tusin waxaan kaa codsanayaa haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato janaalkeena xalana miidiya sabskaraab inaad dhahdid oo furatid gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeenna mahadsanid dhacdo argagax badan ayaa qabsatay maxamed ekey oo ahaa wiil dhallinyaro ah gaal weynna markii dambe noqday diinta islaamka nebiga suubanaha iyo hooyadii intaba u gafay isagoo markaasi difaacaya naag uu ku sheegay inay tahay xaaskiisa balse muuqaalo anshaxumo ah kula soo duubta bartiisa youtube-ka maxamed oo ahaa shakhsigan ka baxay diinta islaamka sheegtana inuu caabudo shayddaanka ayaa markii hore waxaa colaad ba'ani ka dhexaysay isaga iyo hooyadii dhashay oo dadka qaar ay sheegeen inay hooyadii kula dhacday kadib markii uu la yimid naag aad u dhaqan xun oo markaasi diin ahaana liidata lagana shakisanaa diinta ay haysato islaan iyo gaal intaba hadda wuxuu ku sugan yahay sida la sheegay dalka turkiga waxa uuna ka soo aflagaadeynayaa diinta islaamka iyo suubanaha calayhi salaatu wasalaam iyo xitaa eebbihii isaga koonka keenay oo uu og yahay inuu dili doono koonkan abuuray isagu wax walbana leeyahay waxa uuna sheegay inuu shayddaan ka caabudo awood walbana isaga uu hoostegi doono haddaba inta aanan kula wadaagin xogta hoose aan ninkan ka hayo waxaan daawada kaa codsanayaa inaad la daawatid muuqaalada uu soo duubay amase layfka ugu gafayo diinta laga duubay shakhsigan gaalka ah ee ka baxay diinta islaamka dhaqanka iyo asluubta midna aan lahayn waxay ahayd markii aan warbixintiisa idinla wadaagnay isaga oo hooyadii qaab cuqdadaysan ula hadlaya kana door biday naagta uu markaasi hoosta kaga jiro kuna kaliftay hadda inuu hadaladani ku hadlo dadka qaar ayaa aaminsan shakhsigan in xaagtan uusan jeclayn ee sababta uu markasta ugu hoos jiro dhaqanxumadana ugu taageersan yahay ay tahay inuu markaasi ku danaysto ee baasaboor ku helo arrinta yaabka badan ayaa ahayd markii ay baraha bulshada ku soo galeen iyaga oo iskiciilkaambinaya sheegayana dadka Soomaaliyeed inay ku faquuqayaan isar nacayb ee in gabadhu ka soo jeedo beesha jarir weyne arrintaana waxaa soo afjaray kadib markii uu ka baxay diinta islaamka aflagaadeeyey uu u gofay suubanaha calayhi salaatu wasalaam Maryam almusoo qabanayso qof kale soo qabanayso ayaa dhalay she's the cousin do idinka dhan anaa idin waso haddaa mareenka hor imaatin anaa idin waso macaan nabigiina anaa wasataa inta niciimo iyo hibaaq marka laga reebo inta kasoo harta niciimo iyo hibaaq anaa wasano abaa marin laakiin maxaa ku dhaca soo qabsano marin xaasidaa tahay almaa koo suuriga أنت باشا محمد ومقلوب laf ay baan ku wasi doonaa midda kale runta aan idin sheego aniga magacayga waxaa la yidhahdaa axmed kaafi cabdulaahi eke ما شاء wiil الله برشو soomaaliyeed ahay wiil qalbi fiican ahay wiil nolol kala duwan oo waqti kala duwan soo maray ahay diin kasta oo dunidan ka nool aaminsan ahay laakiin especially diinta aan aadka u aaminsanahay waa diinta maasoniga waa diinta illuminatiga runta idin sheegaya aniga waxaan caabudaa shaydaanka especially for you guys you have to be careful qof kasta oo muuqaalkan daawada kuna sugan dalka Turkiga ama goob walba uu shakhsigani joogo waxaan ka codsanayaa inuu ka guda ama ku oofiyo xukunka uu lahaa ee diinta islaamku ku xukuntay qof kasta oo caaya suubanaha calayhi salaatu wasalaam
wuxuu ahaadaba ha ahaado murtad ama muslim midkuu ahaadaba ha ahaadee shakhsigan sida muuqata wuxuu isaga baxay diinta islaamka waxa uuna ilaahay la shariig yeelay shakhsi kale uu sheegay inuu caabudo waa shaydaankee ninkan dhallinyarada ah ayaa sidoo kale baahiyey inuu u shaqeeyo ama ka tirsan yahay kooxda la yidhaahdo eliminatiga ee caabudo shaydaanka kuwa oo dunida faraba'an ku haya dad badan oo fanaaniin iyo shakhsiyaad caan ahna ay caabudaan haddaba daawada aan kula wadaago qaybo kale oo ka mid a muuqaaladiisa ani walaashaya ahay weliba kaaweyn maxamed salaad dhibkii hooyada kaa soo marto waa ogtahay wiilka asoo yara hooyadiisa aabihiis kala tageen kaas ka garo xaaskiisa xabiiba waa taasaa depression iyo xanuun iyo khiyaano oo u geystay ayay dhakhtar kula jirtaa wuxuu dhahay hooyaday way dhimatay aabahayna wuu dhintay hooyadiis asoo la nool habartiis ka dhigay habartay way gumaysataa habartay cuntada way iga dhammaysataa si xun ii gashay hooyaday la dhalatay please caawi 2018 ee saas ku sameeyay